السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود أواد داوديال رمضان مبارك. بركوين كربي كوركينا هاته وبرنامج أنو مقعدنا taxanaha noloshii saxaabada kaas oo ku soo qaadan doono hal saxaabi. waxaa inoo marisay qaybtii hore Salmaan oo ku soo wajahan Madiina isagoo oo soo raacay safarkii Carbeed isla markaana xoolihiisii oo dhan siiyay. marka ay marayaan waadil qura way khiyaameen nimankii waxay ka iibiyeen nin Yahuudiya waxay ku dhaheen kani waa adoon inaga iibso isna waa uu ka iibsaday. Salmaan waxa uu noqday adoon shaqadii adoonnimada ayuu bilaabay. muddo yar kadib waxa uu yimaaday ninkii Yahuudiga ahaa nin kale oo Yahuudi oo Madiina ka yimid kaas ayaa haddana soo iibsaday waxa uu keenay Madiina. Salmaan waxa uu arkay timirtii faraha badnayd waxa uuna gartay inuu magaaladii Madiina yimid. maalin maalmaha ka mida Salmaan iyo sayidkiisa oo beerta jooga. Salmaan waqtiga geedka ayuu dul saarnaa shaqadiisana waa uu watay ninkii lahaana geedka ayuu hoos fadhiyay. isla markaa waxaa dhawaaqay nin Yahuudiya waxa uu ku dhawaaqay Banu Qaylata. wallaahi baan ku dhaartay hadda waxay ku urursan yihiin kuwa meesha la dhaho nin ayay ku urursan yihiin ninkaas oo Maka ka yimid nebina sheeganaya Allah ha nacdale. Salmaan waxa uu dhahay marka aan maqlay hadalka waxa ay qabatay xumad daran jidhka oo dhan ayay gariiray waxaan ku sigtay inaan ka soo dhaco geedkii sayidkayna aan ku soo dullaco. si degdeg ah ayuu Salmaan uga soo degay geedkii isagoo ku dhawaaqaya maxaad tidhi igu soo celi hadalkii. waxaa cadhooday sayidkii Salmaan ayuu feer daran ku dhuftay isagoo markaana ku leh maxaa kaa saaran adoon la leeyahay tahe ku noqo shaqadaadii. Salmaan waa uu maqlay hadalka markuu geedka saarnaa se waxa uu rabay in loogu soo celiyo uun. Salmaan waxa uu dhahay markii ay cadceedu dhacday waxa aan qaatay wax yar oo ka mid ah timirtii aan ka helay shaqadii. waxa uu bilaabay inuu u dhaqaajiyo xaggii nebiga sallallahu calayhi wasallam. waxa uu raadinayaa calaamaadkii loo soo sheegay. waxa uu haystaa calaamadii koobaad oo ahayd magaalada timir badan. marka uu soo gaadhay Salmaan meeshii uu nebigu joogay sallallahu calayhi wasallam waxa uu keenay timir uu waday. waxa uu ku dhahay waxaa la sheegay inaad tihiin dad khayr badan ood ka soo haajirteen Maka waxaan idigu talagalay timirta sadaq ahaan ayaan idigu keenay. nebiga ayuuna markaa u dhiibay isagoo oo raadinaya calaamaadkii loo soo sheegay. nebigu ma uusan cunin sadaqadii saxaabadiisa ayuu cuna ku dhahay. Salmaan waxa uu gartay in uu calaamadii kale uu haysto. marka uu cuni waayay nebigu sallallahu calayhi wasallam sadaqadii Salmaan waa uu iska soo noqday isagoo ku soo noqday shaqadiisii. markii uu Salmaan ku noqday shaqadiisii waxa uu soo ururiyay haddana timir kale. nebigu sallallahu calayhi wasallam marka uu Quba ka yimid Madiinana uu yimid ayuu haddana mar kale Salmaan u yimaaday isagoo wada timir. kadib rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku dhahay waxaan arkaa in aadan sadaqada cunin laakiin tani waa hadiyad aan adiga kuugu talagalay. nebigu waa uu ka qaatay hadiyaddii saxaabadiisana waxa uu ku dhahay ila cuna. halkaana waxaa uga caddaatay Salmaan in calaamadii kale uu haysto. ilayn calaamaadkii loo soo sheegay waxaa ka mid ahaa nebigaasi sadaqada ma cuno hadiyaddana waa uu qaataa. nebiga ayuu yimaaday sallallahu calayhi wasallam isagoo oo jooga Baqiicul Qarqad isla markaana aasay saxaabi dhintay. nebigu sallallahu calayhi wasallam waqtigaa waxa uu huwanaa 2 go'. Salmaan waxa uu dhahay isla waqtigaa waxaan ka maray gadaal xagga dambe aniga oo fiirinaya calaamadii ku qornayd nebiga sallallahu calayhi wasallam taasoo ahayd khaatimul anbiyaa. nebigu markuu arkay in aan wax raadinayo waxa uu ka qaaday dhabarkiisa go'ii waxaanan arkay calaamadii aan raadinayay. markaan arkay calaamadii khaatimul anbiyaa nebiga ayaan ku dullacay aniga oo ooyaya. rasuulku sallallahu calayhi wasallam waa uu wareystay waxaa kugu dhacay ayuu dhahay
waxaan nooga sheekeeyey qisadii dheereed een u soo maray si aan rasuulka ula kulmo sala allahu calayhi wasalam. rasuulku aad ayuu ula yaabay, waa uuna farxay, waxa uuna jeclaaday in asxaabtuna ay maqlaan qisadayda. waxa uu igu dhahay ugu soo celiya iyagana maqashii si ay ugu dhegaystaan. asxaabtu aad ayay iyaguna ugu farxeen. salmaan alfarisi radiallahu canhu maalintaa waxa uu ku guulaystay dadaalkiisii faraha badnaa.